munaasabad qalin jabina uu soo qaban qaabiyay macadka Al-Jazeera ayaa habeenkii xalay lagu qabtay hoteelka Rays ee magaalada Boorama waxaana munaasabadaasi nooga qayb galay wariyahayaga Axmed Diriye Ciiltire waxaa habeenkii xalay ahayd hoteelka Rays ee magaalada Boorama lagu qabtay xafladda qalin jabinta dufcadii 8aad ee ka baxday barefadka kombiyuutarka ee Al-Jazeera xafladan ayaa waxa qalin jabinayay tiro gaadhaysa 100 arday oo bartay qaybaha kala duwan ee kombiyuutarka waxaana xafladan ka soo qayb galay ardayda qalin jabinaysay waalidadooda iyo mas'uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay arday ka qalin jabiyay macadka Al-Jazeera kaasi oo ka waramay waxyaabihii ay barteen waxaana uu sheegay inay waxyaabo fara badan oo kombiyuutarka ay ka faa'iideysteen una bulshada ugu baaqiyo inay dhamaantoodba ka faa'iideystaan waxbarashadu kombiyuutarku inay tahay maanta aaladda qudhaata ee caalamka ama aqoonta gudba kala hagta sidoo kale iyaguna waxa halkaasi ka hadlay qaar kamid ah mas'uuliyiinta ka socday wasaaradda waxbarashada waxaana ay sheegeen inay soo dhaweynayaan ardaydan qalin jabisay iyaguna ay ardaydu uga faa'iideeyaan waxbarashada ay barteen ee kombiyuutarka bulshada kale ee ay ku dhex nool yihiin waxa weeye tii la yiri qofku marka wax barto inkastoo lacag ka qaaday wax baradana taa marka qof wax bartay qofkii ka sii faa'iideysto ajar baa ugu jiray isaga haddii xagga loo eego moogtay oo cibaado ajar buu ku leeyahay labaduba saxiib marka aad qaadan karto soo tadiinta ee aad u shaqaysato ee aakhiraha lagu xisaabtamayo waa tan tadawati adduunka labadaba way la bartay waa loo baahan yahay meel alla annaga meesha hadaan nahay waxbarashada meel alla meesha wax lagu barayo dhan oo hoygeeda annagu ka mid baan meesha wax lagu barayo waa bulshadeeda dadka wax baranaya waa dadkeeda laakiin maxaa loo baahan yahay waxa la doonayaa inaad ka faa'iideyso barashada aad baratay oo ina noqonin mid aad la seexato haddii walaalkaa jiro waa inaad bartaa faa'iida kugu jirtay kuka arkayso ma taqaanaa telefishinka daawanaysa inta badan ay dhabar jirtay telefishin baa daawanaysa sida telefishinka looga hawlgalo iyo sida qisaaniska loogu sameeyo waa wax weyn lafteedu oo shaqo taga taa lafteedu dee magaalo casri oo loo soo doonto cilmiga noqonaysaa dee raggii ka shaqeeya ee barta ee si fiican fursaanku wuxuu leeyahay dhaktarka wada bartaan haddana maxaa fiican qaar baa la amaana soo ma marka kuwa la amaano ee wax sameeya noqda midda kale cilmiga barateen ee ku soo dadaashay asagina waxa muhiima waa sidii xasan sheegayay barakaska wanaagsan gabagabadii ayaa waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha macadka barefadka injineer Maxamed waxaana uu sheegay inuu soo dhaweynayo ardayda qalin jabisay waxaana uu dardaaran u diray dhammaan ardayda qalin jabisay isagoo oo sheegay inay macadkan Al-Jazeera ay bisha soo socota ay ku soo kordhin doonaan qaybo kala duwan oo kombiyuutarka ah kombiyuutarka waxa uu dabro heerka kombiyuutarka dad kombiyuutarka joojiso alaas buu ku dhameeyay balkiyada isoo ku aadlooys imaga programyada aan maarif soo kordhin doono kale wax ku jira program after effect leeyahay halada hadda isticmaal weyn hadii ku cidwada loo isay sabskiil la wareego computer marka wala sii wada computer sii wada imaga internet kan aad kaysa maanta wax jaro imaga maanta waddanka inuu ku jira wadamada adduunka ugu internet jaro adduunka oo dhan Afrika iyo caalamka adduunka oo dhan laga internet jaro wadamada ugu internet jaro ma jirna waayo dad ka qaran jirayso Photoshop video editing دواء على لغة إيه؟ سجوا واحد فقط صار برنامج الإسلام سوكر، نصلا ورقة اللي يقول على الدورتان حاجة بقطع رقم، البرنامج اللي تفيد اللي مش شغال سوكر، وهذا واحد اللي يتصل سوكر. برنامج ده كان مارش على بلابل ولا ليزو، برنامج ده مارش بلابل، وضح على كمان ما يلا رجع مش. أحمد ديري عيلتري ريا تي في مقالة بورما.